بسم الله الرحمن الرحيم حالي مران سيسي حانيني waxaa soo dhacay laba akoon oo midna number hormuud yahay midna uu yahay bangi lagu sheegay salaam bangi kaasoo qabiilada Soomaaliyeed kamid uu dhahay waxaan rabnaa in lacagna lagu soo rido horta warka sida loo dhigay waxa ka fiicnaaday si ka wanaagsan in loo dhigo waa la ogyahay maanta xaaladda lagu jiro iyo marxaladaha ay marayso waxyaalo tan ka daran laga xoolo yar yahay lagana dad yar yahayna waa la soo maray waana laga nool yahay waana laga sheekay laakiin aniga waxay ila muuqataa in siyaasadii iyo dhaqankii oo beesha ka wareeray oo ogtihiin beesha cali madaxweyne la yiraahdo siyaasiyiintii ay dirsadeen inay dagaal ku qaadeen isla beesha xawaadle siyaasiyiintoodii oo dhan siyaasi cali madaxweyne looga soo jaray xawaadle sidii u sii socotayna si fashilka siyaasiyiintaas loo qariyo oo siyaasiyiintaas jabkii soo gaaray xoogaa mara loo saaro haddana dhaqankii in lugaha inta la soo qabtay deeqo jab loo siiyay hub ku jir waxa la rabaa dagaal baa lagu jiraa baaxadiisu ay tahay gobolka Hiiraan ee beesha xawaadle warka adduunka iyo warka Soomaalidu waa kaasa jifo tuulo degan cid taqaana ma jirto xataa cid wax bixinaysa magac xawaadle ku bixinaysa moogtaa waxa jira marka waayahan dambaba reerka waa la goobeynay sidii yaanyo islaanu miis jidka qarkiisa ku gadanayso goobayska meel lagu ma gaaro qolaba dirisna la ahaa jiray hadda wax walba dawladda maamul goboleedka ka markay isgoobeeyeen maanta xaafadahooda waxaan goondhab iyo magac xumo iyo taariikh xumo ahayno ma taalo siyaasadeedii duugowday qayb kamid ah oo la soo koobiyeen in anaga hadda lagu talaalaha muddo diriska kuma cadeen kuma madoobaalay haddii reehebel isgoobays ay ka faa'iideen goondhab adigu maxaad ugu dayanaysaa marka tolkii cali madaxweyne sida saxda ah ayuun isyeelyeelin waxay u ordayeen intaasoo ceeb iyo dhiiqa u taraareen ay kartoonka u soo dhigteen waxa ay aheeday wax xawaadle la yiraahdo gudigay ka mid noqon dhaqaalaha xawaadle laga qaadayna iyana goobjoog ka noqon laakiin adduunka xisaab cilin baa ka jirto shanta qaaradood iyo Soomaaliya markii lacag laga soo arooriyo inkastay shanta Soomaaliya ay shanta qaarad ka mid tahay Afrika ku taalo haddana wadanka Soomaaliya la yiraahdo wax loo qaadayo shanta qaarad oo ka koreyso mid ka yaa marka wax laga soo arooriyo waxaas waxa loogu tala galay waxay tahay ninka dhaawacmay iyo ninka qoriga ridaaya loogu tala galay horta la soco adiga suudka watana wax kuma lihid adiga soo cilaansadayna wax kuma lihid laakiin waxa loo hor qoorteynaya waxa ay tahay aniga kaligay one and only wax la yiraahdaa jirto haddii marka la yiri xawaad la weyna dhaqaalaha bixiyo haddana gudiga buugga wataysan ka mid noqon sidii ku suurtagal adinka ay weydiin soo odayaashu intay wax raadiya dhahayeen maysan isbaaro u dhigan dhaqaalihi xawaadle ama Soomaali kala ku bixi lahayd dagaalka ee loogu tala galay ninka qoraga watay ninka dhaawacmay yes حساب علينا أدونك كجرتو حدي لسوا قاعدة صدر مليون ضدك اللي قصوا قاعدة واحد ربان إني أوجادان ما جارتي ماشى وحبض إنك كردا وتاجناي ما أنا جارتي ماشى أو يالله صريرتك سعريها متكنا وعمي يوروب وين جودي يالتو أمريكا وين جودي يالتو عرب وحجرة وين جودي ياشان أفريقيا وحجرة وين جودي ياشان صوماليا وين جوجا جودي كلا هذاني لكن أنا وعلم مدحوينه جودي حوالله وحبكم درسانينه متك درستين وإذن صوت دري ما هانو وحا يري سياسيين تحوالله وحبكم درسانين أصلا أو رير كمال عبد الله إن الدجال كل جود كل نقدان سوء استاجي 10 لقى بران 100 نكده ما سياسة درستين مركو كدولو عيال وير وبحي حلبانه دي حواله ريركو إنه كل يس دجال كل نقد خصو كي ماشي سوء استاجي هذا أنا دقالي ما ليري هذا أنا عد مال عدله لسوء استاجي ورنيك عربت كينايو ينك $100 ديبايو $100 waxa laga yaabaa in 3 riyood lagu soo gado oo 30 nin ku qadayso in isbaar loo dhiga ma waxa la rabaa dagaalka inta lagu jiro in dhigaha la fureysto haday rabaan xawaad la yiraahdo dhaqaalaha dhan anaga bixinayno laakiin xataa cali madaxweyne gudiga iyo wax ku yeelan markii la yiraahdo xataa 99% dhaqaalaha suucidu gaar dagaal ku jirta waa cali madaxweyne hadana marka saas wuxuu ogtaa marka waxa la rabaa in tiraahdo way anigu banaankan istaagay dadka hadii wax loo qabanayo u qabto waa kuwaas adinka idin ka dhasheen laakiin waxa rabtaa in tiraahdo xawaada lacag bixiyo
laakiin guddiga ka mid noqonaan anagu cali madaxweynaha laba akoon wadan isma qabanaysa marka dagaal maalintuu dhamaadaa la rabaa kii gunahay ee xoolo gumeed dhiibay iyo kii gobahay inaad ka sheekayso taariikhda dambe laakiin dagaalku intuu socdo wax taariikhaba laga sheekay karo waa in loo aamusaa dadka xawaadlii maqnaanayo gun noqonayo xawaadlii wax bixinayo gob noqonayo sida ay u sii kala gobsan yihiin cali madaxweynuhu inaad musuqmaasuqdaan oo dhex orodaan ma hayna dagaal baa lagu jiraa furun baa lagu jiraa xabada socoto ku kaligeeda cali madaxweyne haddana oo xawaadlo waajib ka saaray inay dhaqaalaha bixiyaan haddana ayagii in la eriyo maahan marka kaa badan kaa cod badan sid u raacdayna marka annagoo hal xildhibaan laa waxaan ka kari waayin war xawaadla 9 xildhibaan uu leeyahay aan wax isku darsan asari ma loo baahna buu ciyaal weera waxaan sabul soo galiis hore gadaal ugu ordo filada anaa xiro anaa furo leega ma daba hadlo siyaasadda hadda soo galan waa ciyaal weera u lahaa asigoo kaligiis la eriyaho baadiyo joogo hadda yimid oon xawaadlana ahayn dawladna ahayn odayaaliin wuxuu ugu sheekay haddana wax xawaadla la yiraahdo ma shaqayso haddana lacagta ciidan ka rabnaa waa xawaadle ninka qoriga wataa marka wuxuu badhi bano u yahay dhaqankiisa iyo siyaasigiisa asiga way ka go'antaa inuu qawaariij dilo inuu dagaalamo inuu gunnimo qaadan inuu tuuladiisa lagu xukumin degmadiisa lagu xukumin gobolkiisa lagu xukumin diyaar u yahay laakiin adeerkiisaaba koomba garab dhigto hayba siyaasigiisina siyaasigii kale oo reerka ula hadli lahayo asaguna garab ordooha guddi waxa la yiraahdaa waa wax la socda in wax la musuqmaasuqay in kaleeto hadaarto waxa dhigi kartaa guddu haduu 20 yahay annaga cali 10 nasiya xawaadla ma saadiidi ama waxa dhigi kartiin xataa 5 xawaadla ha qaatay 15 ka annaga nasiya ama waxa dhigi kartiin xataa maadaama annagu dibku nagu dhaco hay walaalayaalow annaga dhanba banaankan ka tagayna xabada ridayna annagu gabadha shalay ugu dambaysay oo badarka lala yaabay oo gudoomiyaha muqkuri ka warbixinaya badarka ugu fiican oo 48 saac lagu dagaalami karay geynaysa cali madaxweyne ma ahayd maxaa dadka loo fiijinaa marka tii ka horeyso shidaalka wada cali madaxweyne ahayd dadka maxaa loo eriyaa walaalayaalo ma ogtihiin in ay xawaadle kala fogeynayso haddii 4 oday akoon meel ku soo qortaan mase xilli dagaal lagu jiro waqtigeedii la joogaa dadka in la kala diro حتى هداد أكتهي إن ولالك مانتي كفر حسين يدبك كورة هداد أكتها حتى وحافي عني لدو مستود مركا لك شاكي سواب هداي جرتو لكن أسيقي وراها العاقة نديبة وحوالا بولو برتسكو كير وقديان سمينة وإنو حوالا دقالب بحي أسيقي وراها وحلاذا أنك أكون كاينو وين العقد كسور عضا لبعتي انتي دا لأك وايين waxyaalo kale oo badan oo la sheegi karin baa jiro fashahaariye badan oo meel kale laga soo sheegay koombada meelooyin kale bay jirtaa la dhahay jaanis baa loo arkay dagaalkii hore beeraya bal waxaan ogeynay jaadley ka xariiftanta shidaalka iyo rasaasta bakusyada ku jirto laakiin hadda qaab kale oo maaliyadeed isku bedeshay waxay wax ka qaldan yihiin marka waa dhaqanka iyo siyaasadda cali madaxweyne ee cali madaxweynaha ballaaran waxay haleeyeen on xawaadle jacayl iyo in qawaariij xurayaan ayagu dhintaan aan ahayn ma bajirto laakiin kii ayaga dadka u dhaxeeya wax ku dheeloohayo siyaasigiina siyaasiyiinta xawaadle lagu ma karo dhaqankeena dhaqankii xawaadle lagu ma karo haddii marka dhibku meeshu ka imaanaya waxay tahay nabadoonka sidiisa markii horeba waxa watay niman ganacsi ku ilaalsanayo iyo niman siyaasad xawaadlay gobolka ka gadmi wayso ku ilaalsanaa keensadaba markiisii hore wuu ku qasbaya marka wixii dheh la yiraahdo inuu yiraahdo waa markaan leeyahay indhatiriya cali baadiyo iyo geed libiya hoos degan sidiisaba nabadooni duubteen ba ma ahayn 4 sano kursiga cali madaxweyne muxuu uga hadli waay hadduu nin xorho cali madaxweyne u madax banaan u yahay daawan ku heli lahayn dawladda wax uga heli lahayn nin xasaanad loo adduunka wax ka keeni karo noqo laha sidee qabiil intaas dhamo xildhibaan laan ku noqon kara kursina u leh muxuu uga hadli waay nabadoonku bangiba waa ka hadlay lacag lagu soo shubayo markii horeba jaadley jaad ku difaacanayso iyo maamul hirshabeelle ee soco waayay niman in lala socodsiiyo rabo maamul gobolka ka gadmi waayay iyo xawaalaha dhexdiisa raggaas baa ninkan markiisii horeba ayagoo sido
meel teedaan la yiraahdo tacsiyo ka dhacayso aan anagu TV ka aragno yaan lagu dheelin marka xilligan ka xuntaa waa la soo maray anigu dadkii 91kii joogan kamid ahaa colkii la diriray taangiina waa wata diyaaradana waa wata dadkii la dirirayna dadkan waa ka yaraay waana ka xoolo yaraay dibadahan saan loo joogay dollarkan iyo baqaaradan iyo moolashaanu ma jirin taleefana ma jirin hadda dagaalku markuu aadan yahay ka socdo ilaa Mareykan 1 daqiiqan ku wada helayna laakiin waagaas jugtaan maqli jirnay qof socdo shalay la soo diray oo kidibkiisa dad badan u dhinteen warkuu noo keeni jiray wax xusista geela la iska aruuri jiray oo xaajiyo laba xaajiya jirtay dhibaatada la soo maro laga sheekeen idin sheega maanta hadda naagta iriga la jirtaa baawar wadato mid iriga la jirtaa telefoon haysto daqiiqad warku u soo laakiin soon telefoon jira oo inta xaaji 50 la soo diro niman la soo saaro geel la aruuriyo geelaas la safriyo rasaas lagu soo gada kadib duulaan la qaadan soo joogin anigana soo joogay raggii xaajiyada staffka ka ahay ee ninkii geel diida soo xiri jiray waxa kamid ah Ibrahim Xuseen Waadinin la yiraahdo waxa wala carara ma aragtay inuu maalin ugu yiri anoo geel la jiro intuu maray meelahan ii sheegay yiri meel wali degan kuwa wala qaaraanka diidan adinka labadiina halaad shalay la qumiyayo waa naga horeeyaan markii heerkaas la soo maro telefoon jiray oo warku 3 biri soo soconayo markaas baa maanta hal WhatsApp lagu wada jiro si aan loo tuugsan jirin xilligaas hadda loo tuugsado ayaa iska yeelay markii علي مدحوينه ما أنت عندك حوال بدن ما جرت حدان لبعتني إنه جديو علي مدحوينه مجعاو أون إرادة حركية قال القات عد كستو علي مدحوينه كي يرجو جوجنا حال ربس كصوّرة كي جيلو جوجنا حال كل جيده بس كصوّرة هذا إرادة طبعا كسنة أو صوص عطوكوا فيلم هذا أنا قاعدين بقارات بقول برتي بلدوينية مقدسية كوي علي يقربان أنا قاعد هل جيل بس على نينها ليك أنا دانو marka qaab badan wax loo aruuriyaa jiray way xal waxa fashil ceebad laga yaabay siyaasad soo fashilantay in dhaqanka dhinaciisa lagu dhaqaayo anagu ma naqaano laakiin waxaan la fahmi karin horay u dhici doonin ay ahayd war maxilligii Ibrahim Xuseen Waadi Xaaji 50 geel ku aruuri jiray ka xuntaay maanta kama xumo wallahi inayna ka xumayn oo laga yaabo 5 maalin asoo sii maqan gadaashiisa inay 100 qof dhimato oo war ka hayn oo telefoon jiray waxba lama ogeyn geedka qofkii la wareego cid ogeed ma jirto ya ay yiri jirta bas asoo dadyeeranku dhigi jiray waagaas markee waa soo joognay ilmaha maanta waa ka sheekeeyayna barwaaqo dhan xilligaas ka dibay timid ganacsi oo dhan xilligaas ka dib u koray dadku xilligaas ka dibay bateen magaalooyinku xilligaas ka dibay bateen maanta dadka ilaaha u gargaaray markee xawaadle dhinaca siyaasadda hadii isbaaro loo dhigay dhinaca maaliyadda dhaqaalaha bixinayaan isbaaro loo dhigay hal laga hor wareego xawaadlaha naftirkiisa waxaan leeyahay wax kasto haddaad ka aamustaan cali madaxweyne farahaan oo kale kamid yahay hadii far laga gooyo fareeyad noqonaysa afkaada hadii ilig laga jibeenay in duleesho waa loo jeedaa xawaadlo marka cali wixii la arka kuma fiirsan kartaan adinka warkiina hal arko walaalka inaad qabsan kartid adaa laga rabaa hadii laakiin aad diyaar u tahay afkaada ilig laga jibiyay ee lagu inay banaanaato macquul noqomayso ama ay farka maqnaato fari lagu yiraahdo marka xawaalaha naftirkoodu iyo munaafiqiin hadii cali wax walba ku dheelaa wax walba ay gacanta ka sii baxaan walaalo waa qaldan tahay waa dhihi kartaa oo ku hogaansami karaa tartiib oo la hadal qol mugdi kula soo hadal haduu diidana media kan hata laakiin nimankaanu in ayagu istoogtaan waxayna u haray ma jirto xasan sheekh wuxuu dhigi jiray farmaajo inuu isku duulo waxaan u maarin cali waa in ayagu istoogtaan waxayna hadda u maarin meeshii ugu dambeysay hadda xal istaagin jig anu hadda wax ka cunaysa may doonaan oo haray ma aqaan ma ogi u maleeyay ma inay jirto